السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada channelkeena qisooyinka daara laba. haddaba channelkan waxaynu ku soo gudbinaa qisaska ama sheekooyinka cajiibka ee dunidan ka dhaca gaar ahaan dalalka islaamka oo aanu isleenahay dadka Soomaalida ah aad bay dhaqan ahaan isugu dhow yihiin dadkaas. haddaba maxaynu ka baranaa qisooyinka? waxaynu ka baranaa waxyaabo fara badan oo markaa dhacdooyin ah oo dhacay. haddaba qisada toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa arrin khatar ah oo dhacday magaalada la yiraahdo Daarul Baydaa ama la yiraahdo Casablanca. waa magaalo weyn oo ganacsi oo wadanka ku taala Morocco. waa magaalo caan ah. haddaba magaaladaas ayay qisadani ku saabsan tahay. booliiska magaalada ayaa waxaa loo soo diray sanadku markuu ahaa 2010 telefoonkaas wuxuu ka yimid mid ka mid ah isbitaalada magaalada Casablanca ama Daarul Baydaa. waxaa lagu wargeliyay nin iyo xaaskiisa oo la soo sumeeyay in isbitaalka la keenay. welibana xaaska ay lahayd uur 7 bilooda. tacaalidda dhakhaatiirta iyo degdegidda iyo hawshii qadar ilaahay gabadhii iyo cunugii caloosha ay ku siday inay dhinteen. ninkana xaalad khatara oo kooma inuu ku jiro. booliisku marka sidaas ayaa lagu soo wargeliyay. sun hadday noqoto baash waa dambi. waa in hay-adaha ammaanka la wargeliyaa. waa in hay-adaha ammaanku ay imaadaan oo waxan siday u dhaceen la baaraa. isbitaalka marka xilka saaran waa intaas. marka sheekada magaceeda waxa la yiraahdaa طعم oo sumaysan ama cunto sumaysan. qisadii cuntadii sunta ahayd Allah sheekada. marka runtii waa sheeko la yaab leh oo aad cajiib u ah. booliiskii waa yimaadeen isbitaalkii. dadkan waaba sumaysan yihiin, qaarna waa dhinteen, qaarna waa koome ku jiraan. yaa keenay dhehen marka hebel. okay, hebelka muxuu idin sheegay? wuxuu yiri ninka koomada ku jira ee naagta qabay waxa la yiraahdaa Cabdulqaadir. gabadhana waxa la yiraahdaa Safiya la yiraahdaa Safiya iyo Cabdulqaadir oo ku kala qoray magacyada. isaguna wuxuu noo sheegay inuu la dhashay ninka la sumeeyay. booliisku waxay soo qorqorteen way soo baxeen. booliiskii iyo baarayaashii iyo dhakhaatiirtii wax baaraysay dibbu sharciga la yiraahdo oo maartay dadka markay dhintaan baaritaan ku sameeya ayaa wixii oo dhan ka howlgalay. gabadhii dhimatay waa la baaray inay sumaysneed waa la xaqiijiyay. ninka inuu sumaysan yahayna dhakhaatiirtu waa xaqiijiyeen. baarayaashii marka waxay yimaadeen guri ay deganaayeen. gurigu marka waa 2 dabaq. dabaqa kore waxaa degan wiilkan iyo xaaskiisa. dabaqa hoosena reerkooda wiilkaa degan, walaalkiis iyo walaalihiisa degan. booliiskii markay guriga yimaadeen waxaa la socda marka baarayaal dambiyada baara. baarayaashu marka guriga ay soo galeen, ninkii marka tiim kasta oo kiiska wada ninbaa madax u ah. ninkii wuxuu yiri marka wixii alaaba oo meesha yaalay oo cuntaa ay cunayeen ala qaabay waa la baarayaa inay sunta ku jirto cuntadan. ninkii marka uu soo baxay baaraha fiiri aad nin u cilmi badan waay. baaritaanka dambiyada ma sahlana. marka dee waxay u baahan tahay khibrad waaye aragnimo iyo aqoon
intii la baarayay cuntada saxanka ku jirtay oo dadkii ay baarayeen inay sumaysan tahay in kale ninkan jikadii soo galay ama kushiinkii soo galay jikadii oo fiiriyay wuxuu ogaaday jikada meel cunto lagu kariyay inaysan maalinta ahayn u fiirsada si fiican oo u fiiriya gaaskii wixii cuntada lagu karinayay raadkii cuntada alaab la dhaqay ma jirto maba cuntada ma la karinba guriga dadkina saxana meesha yaalla way ku sumoobeen la leeyahay ninkii loo yeeray wiilkii waxa la yiraahdaa adiga see ku ogaatay inay dadkan u xanuunsan yihiin walaalkaya albaabka furay wuuna dhacay isagoo xanuun sheeganaya markaan u tagay albaabkii furan isagoo meesha yaala kadibna xaaskiisii oo meesha taala waxaan wacay iscaaf ambulance anigu intaas kaliya sameeyo wax kale aan ka ogahay male gurigoodana ma gelin cuntada ay cunayna shaqo ku mali walla ka hay ninkii horta saldhiga la geeyay wiilkii alaabtii wixii la baaray waqtiga marka meeqa saac ahayd ninkan wuxuu yiri waxay ahayd xilligii qadada markii la qadaynay way qadeeyeen kadibna waxa dhacay anigu marka waa la yaabana waxa dhacay laakiin isbitaalka markaan geeyay dadkan waa sumaysiin yiri anigu wax shaqo ku mali faraa laga qaaday alaabtii wixii iyo guriga dhexdiisa iyo farihiisa laga fiiriyay laga waayay annaga marka ku baahano ku soo wacayna ee maaratay iska baxaleen wiilku iska soo baxay ninkii marka baaraha ahaa qoladiisii tiimkiisii wax baaraysay waxay yiraahdeen jikadii ama kushiinkii waxba laguma karin dadkan waxay cunayeen saxan weyn iyo khubs weyn iyo waxan waay waxay cunayeen kalluun marka maxaa dhici kara guriga laguma karin cuntadan marka waxay iska dhaadhiciyeen waxay yiraahdeen waxa laga yaqaanaa marka meeshaas qolooyin waxa jira kalluunka ama malayga loo geeyo way ku soo sameynayaan way ku soo habeynayaan waa ka soo qaadanaysa waa foornooyinka caadiga rootina waa lagu gadaa doolsho iyo waa lagu sameeyaa anaga intaas dhaqan laakiin ayaga carabta waxay ku dareen qayb hilibka iyo lagu diyaariyay iyo cuntada oo ayagoo maaratay si fiican loo habeeyay la soo marka gabadha maadaama ay uur lahayd cuntadaas meeshaasay jeclay marka waxa la ogaaday waxa la cuntada meeshaasay ka timid marka meesha ma u dhowdahay marka xaafad haalir marka meel agtooda waxa ku yaala meeshaas kalluunka iyo lagu sameeyay okay ninkii baarihii marka uu soo baxay ninkii wali Cabduqaadirkii koomo ku jira gabadha qabay ogow gabadhii laakiin iyo cunugeedii Allah yarah waa dhinteen ninkii marka baarayaasha booliisku waxay yimaadeen meeshii waxay ku yiraahdeen ahlan wa sahlan fiicantii ma fiicana haye warka keena ee waxaan u soconay waayay dadka Safiya iyo Cabduqaadir iyo waan maqalnay inay maartay xaaladoodu ay adkaatay oo dhinteen Ilaahay raxmo anaga darisaan ahayna markii ninkii baaraha wuxuu yiri waxaan ku weydiiyay maalin hebel reerkaas ma la macaamisho wax ma ku keeneen ninkan meesha iskale marka wuxuu yiri sug waxaan fiirinaynaa anaga qof kasto wax noo keena waa qornaa magaciisa marka magaciisa qorno hadhow markuu soo laabto waa saxnaa marka rekoorka fiirina maalin walba dad badan oo keensado macaamil badan leenahay oo maaratay aan kalluunkaas u sameeynaa waxaas u sameeynaa marka waa fiirinaya okay kan buugiyo fiiriyo waa soo baxday Cabduqaadirka iyo xaaskiisii inay keensadeen maalintaas waa kana maalin waa noo keensadeen maxay keeneen kalluun kalluun ma keeneen marka kalluunka yaa sameeyay wuxuu yiri aniga meesha leey
kalluunka iyo waxa kan iyo sida loo sameeyo koraan kala socdaa laakiin wiil 17 jir ah oo aad aan ugu tababarnay ayaa hawsha ka shaqeeya oo diyaariya haye wiilkaas marka waxa loo maartay shaqadaas qabanaya annaga hadda saan meesha u fadhiya asaa diyaariya asaga keena asaga maalinka ku qornaa shaqeynay وما ستده ويلكيا مركا 17 jirka ahaa ayaa loo yeelay ma fiicantahay oo fiicanahay haye nimankii baarayaasha ninkii la fariisteen waxay yiraahdeen maalintaas gabar la yiraahdo Safiya iyo Cabdulqaadir oo xaalkooda Cabdulqaadir xunya Safiyana ay dhimatay cunto ma u diyaarisay waa khalkhalay aniga meesha maartay way yimaadaan markii koowaad maaha maalin walba ay samaystaan dadka kaligood maaha kan ma ninkan wajigiisu fiiri ninka baaraha waa tartaray ninka qofka ilaahay markii uu dhibaato uu sameeyo cabsi iyo waxba ku soo dagay iyo hadana su'aalo marka la weydiiyo iyo wixii sabaysan uu dhageystay marka wuxuu yiri adiga marka adi ma diyaari haana diyaari sida dadka kale ugu diyaariyo okay marka ku baahano anaga ku soo waxaan ururinaynaa xogta dadkaas dhintay ka waan naxsan marka ninkii baaraha wuxuu yiri 100% boqolkiiba boqol cunugan waxba ku ogi haduu sar asagu hawsha ka sameeyay marka cunugan waa inaa xooga saarnaa nimankii kale baarayaashu u sheegay waxa soo kale aan ogaan karnaa uu yiri ninka koomada ku jira hadii lacalla uu soo fiicnaado inuu wax information ama warbixina aanu ka helno waa suuragal marka aan sugno istaalkii maalinta dambe booliiska soo waxay ninkii waa khalaas waa dhintay Allah yarxam Abdulqaadir ma dhintaa sunta aaday u xoog badnay marka wax la yaab la dhacay nimankii kale ee baaritaanka ku waday alaabtii iyo cuntadii meesha taalay ay ku sumoobeen taqriir keeneen warbixintoodii ay baaraha u soo gudbiyeen qaybtii hawsha soo baartay waxay yiraahdeen waxa meesha ku jira maado aan fahmi weynay oo sun caadi aan ahayn أعشاب وحليذا نر سميسن إيو وحتى وحاكو جرى حيوان وحيسا ومارتي وحيابيسا وحبضن أن كدح أركينا مركز سنتن وسن ديارسن وميل كجرتا وكيميكا أهما هاي وسن وحيراهدين وحلا يسكو دردريا alaabtan oo la isku dardaro dhirta iyo waxa kan iyo waxaas waay ma hubtaan waa hubnaayde sun diyaarsan oo daawo meel ku jirta oo kiimika ah iyo waxaas ma suntu waa sun meelahaas waxaas la isku dardaray ka timaadeen okay way sheekadii marka baarihii ku xog dambe oo laga sugay reerka la sumay ma jiro islaantii waa dhimatay Cabdulqaadir waa dhintay marka waxa la rabaa wixii in la helaa la rabaa marka dilaaga hawshan ka dambeeya in la helo nin marka kamida teamka baarayaasha ayaa wuxuu ninkii madaxda u baarayaasha ku yiri taliya ma dhici kartaa in intixaar uu yahay intixaarka waxa la yiraahdaa Carabiga dilid ama qofka markuu isdilayo la u dhahay taliyaha waadiin wuxuu yiri seysku dileen naag uur leh oo ninkeedii la joogo oo nolol fiican ku jira oo cunugii ugu horreeyay caloosh ku jira man suuragal ba haday ninka kaliya dili lahayd waxba dareemaya laakiin ninka haduu naagta dili lahaa waxba laakiin labadoodii wada cunay marka labadoodii cidaan ahayna hawsha ka dambeysay wax intixaar leeyahay jiraan isdil wax leeyahay qofku naftiisa dilay meesha ma yaalaan u dhaasay u yaalaan
aniga waxaan ka shakisanahay yiri cunuga 17 jirka waxba ogiyeen cunugaasaan ku laabanayna laakiin arina sameynaa haye u fiirsada khiyaanada loo dagaayo cunuga sidii looga soo saari lahaa dambiga uu sameeyay cunug yaa loo yeeray qola la fariisiin shaaha loo shubay nina u sheekayna marka qolo booliiska ka mid ah waa wareysanaya oday iska lahaa meeshuu ka shaqaynayay odaygii iska lahaa aa loo yeeray baarihii iyo odaygii oo wada socda ayaa waxay soo galeen qolkii wiilka uu ku jiray السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا ما في عنتين وفي عنا أكل ها أضيق عن تقبصدي ولا تري قرق الوجيس أضيق وحول واحد على الكيفني ماشي عبار فني ميلكي نقول كانوا كشرا مرحلات كي أضيق وحبه مو يدينا يا سيد ماله فريسي شاه وشو بس وسوق حي حتى قلكي ويلكي وسو مرسي هاي ما في عنتين هاي ما في عنتين سما هاي وما صنتها أدر وأكسيس بوتني أنا كان هذه بعض ما صنتها ويلكي واشكي حصل سيدي وحجران أضيق ولا دري أضيق وحلا ما يدين ولا كان الشاه الله شو حوله وجوز كبح تذكر كلي يبحوا له مرك وكبح ويلكي وصلا حولا نجس فايز الله فايز هاي فايز adiga hawsha ka dambeeyay maxaa ku samaysay kalluunka maxaa ku dartay yaa sakaa qaaday kalluunka wanaxay wiilki wuu yaabay wuu wareeray kura dhageyso dhax waxa aad samayso dhan waa la hayaa ma sheegaysaa waxa samaysay adiga haddaadan shaqo ku lahayn cidda shaqada kula sheeg haddii adiga aad samaysayna sheeg waa dhididay wiilki 17 jir waay wuxuu isdhahay odagaan hore iyo gadaal loo waday iyo sheekadii iyo wixii iyo adiga waxaan sameeyaa la leeyahay moog wiilki wuxuu yiri aniga wixii dhacay idii sheegaa maxaa loo sheegaysaa leeyahay siday dadkaasu u dhinteen ani warka ma hayo laakiin wixii aniga aan sameeyay cidii ii dirtay aydii sheegaa yiri ahlan wa sahlan haye maasha Allah noo sheegaa leeyahay waxa ogtahay sheeg wuxuu yiri aniga gabar raxmo la yiraahdo aan jeclahay saaxiib lahay oo xaafadda nala degan haye raxmo waa 23 jir aniguna waxaan ahay 17 jir 6 sano iga weyntay haye raxma iyo safiyana saaxiibay ahaayeen haye xataa yaraantoodii iskuulka iyo waxa dadka dhan isku xaafad waay haye aniga marka gabadhan aadan u jeclahay raxmada waxaan rabaa inaan guursado ha iga weynaato 6 sano haddii rabto laakiin sideedaas ku haystaa haye marka maalin maalmaha ka mid ah dalab i weydiisad maxay ku weydiisad waxay ugu tiri gabadha saaxiibadeeya Safiya axoogaa yara xanuunsan uurna way leedahay haye marka waxyaabo marka waxa jira